kelmadeeda siinaya agaasimaha fulinta nagaad ururay haweenku ku midoobeen Nafiisa. maanta runtii madashan aynu iskugu nimi ee lagu daahfurayo sanduuqa dhalinyarada waanu guubaabinaynaa waananu soo dhaweynaynaa runtiina waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo sanduuq wax badan ka tara dhalinyarada Somaliland ee maalin walba dufcadaha tirada badan ay ka soo qalin jabinayaan jaamacadaha iyaga oo markaana aanay ku filnayn ama aan helin shaqooyin badan oo ah dadka ugu badan runtiina shaqo la'aantu haysto wadankuna lafdhabartiisu waxa weeyaan dhalinyaro laakiin marka aynu dhalinyarada ka hadlayno ma garanayo malaha muuj dhaqankeena iyo wuxuu yahay dhalinyarada waxa loo haystaa inamo oo xataa hadii odaya dhaqameedka iyo ay sidaahdaan shaqaha la galiyo meelaha wasaaradaha iyo hay'adaha iyo la geeyo cid ugu badan ee dabada laga riixayay la geeyo waxa weeyaan dhalinyarada inamada ah waxaan rajaynayaa sanduuqani inuu noqdo mid ka duwan sida aan u aragnay in dhalinyarada Somaliland ee dabada laga riixay ee la dhiiri galiyo ee shaqo abuurka loo raadiyaa inay inamo u yihiin waxaan rajaynaynaa inuu sanduuqani ka duwanaado oo inamada iyo hablaaba uu sinaado ayaan rajaynaynaa waxaan anigoon faanay sheegaya inay habluhu ka karti badan yihiin ka dulqaad badan yihiin ka dhiiri gelin badan yihiin ka naxariis badan yihiin oo halka ay inantu ku jirto ay kaabayso bulshadan marka sanduuqa waxaan leeyahay hadii majority-giisu wax badan u qabto gabdhaha dhalinyarada ah waxaynu arki doonaa horumar aad u horeeya oo markiiba sanduuqaas laga arko aad baan ugu dhiiri gelinayaa cid kasta oo mas'uuliyadeeda sanduuqa leh inay hablaha saami fiican ka siiyaan insha Allah ta'ala waxa aan si lamid ah aniguna aan u soo jeedinayaa horta nabaddu waa waxa ugu wanaagsan ee aynu ku horumarnay maanta ku naaloonayna halka ku fadhino sidoo gudoomiyaha Soomaaliya ka dhawaajiyay waxaan sidoo kale aniguna aan walaalaheena reer Sool waliba dumarka oo ah dadka nugul maanta wadan magaaladoodii ka barakacay dhibaatooyin badan ay soo gaadheen waxaan leeyahay wixii gurmad iyo caawimaad ah ee hay'adaha ka shaqeeya humanitarian-ka ay fudinayaan in la gaaro loo fidiyo waxa kale oo aan leeyahay inay nabadda dumarku wax badan bay ku leeyihiin ka qayb qaadashadooda waxaan xaqiijinayaa nabadii muxuu ahaa ceelaf weyn kaalintii ay haweenkii aan gudiyada ka sameynay nagala qabteen waxaan leeyahay dumarka Soolna inay iyaguna laftarkoodu taa ka qayb qaataan oo barakaca iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay walaalaheen ay dumarku roolkoodii nabadeynta ay qaadan jireen ilaa maalintii ay dalkaas soo galnay ay ku lahaayeen qaranka Somaliland inay iyaguna ka qayb qaataan ilaahayna colaada inaga joojiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin sanduuqana waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo